Naadiga kubadda cagta ee Real Madrid ayaa ku dhawaaqday inuu ka tagay difaacooda Sergio Ramos kadib muddo 16 sano ah oo ku sugnaa kooxda kubadda cagta ee Los Blancos. Haddaba muuqaalkan waxaan ku eegi doonaa 16kii sano uu ku sugnaa, kulamadii uu ciyaaray, goolashii uu dhaliyay iyo tartamadii uu kula guuleystay. Haddaba intaanan u gudagelin muuqaalka, waxaan kaa codsanayaa inaad channelkan subscribe saarto si lamid ah aad saaxiibadaada la wadaagto si muuqaalada aan sida maalinlaha halkan usoo gelino ay u gaaraan arrimaha ciyaaraha. Difaaca Isbaanishka ah ayaa tartamada oo dhan Real Madrid u saftay 671 kulan, isagoo u dhaliyay 101 gool, waxaana caawiye ka ahaa 40 kale. Dhinaca kale, Sergio Ramos ayaa kooxda reer Spain kula guuleystay 22 koob oo ay ku jiraan 5 jeer oo horyaalka La Liga ah iyo 4 jeer oo uu kula guuleystay Champions League. La Liga, Ramos ayaa wadar ahaan u ciyaaray Madrid 469 kulan oo La Liga ah. Waxaa xusid mudan in uu 15 kulan oo qura u ciyaaray Los Blancos xilli ciyaareedkii dhammaaday dhaawacyo soo gaaray awgood. Xiddigan ayaa La Liga ka dhaliyay 72 gool, isagoo caawiye ka ahaa 39 kale. 6 casaan ah iyo 5 koob ayaa loo diiwaan geliyay. Champions League, difaaca ka soo jeeda gobolka Andalus ayaa baal dahab ah kaga jira taariikhda Champions League isagoo 129 kulan u ciyaaray Madrid. Tartankan waxauna tartankan ka dhaliyay 15 gool iyo weliba 8 caawin. 4 jeer ayuu ku guuleystay tartankan. 2 casaan ah ayaa si lamid ah ugu qoran buugga taariikhda ee tartankan horyaalada Yurub. Copa del Rey, Ramos ayaa 48 kulan ciyaaray tartanka labaad ee heerka kooxaha dalka Spain, waxaana diiwaanka ugu qoran 7 gool iyo 1 caawin. Wax casaan ahna ma qaadan, balse 2 jeer ayuu tartankani ku guuleystay. Spanish Super Cup, Sergio Ramos ayaa Spanish Super Cup kula guuleystay Madrid 4 jeer isagoo ciyaaray 15 kulan, waxaana dhaliyay 2 gool isagoo 1 caawin ku darsaday. Club World Cup, 6 kulan 531 daqiiqo ayuu Ramos tartankan ciyaaray, waxaana ku guuleystay 4 jeer isagoo dhaliyay 3 gool. UEFA Super Cup, kabtaankii hore ee Madrid ayaa tartankan ciyaaray 4 jeer, waxaana dhaliyay 2 gool 420 daqiiqo oo tartankani kasoo muuqday, waxaana ku guuleystay 3 jeer. Haddaba Sergio Ramos ayaa 16 sano kadib baneeyay garoonka Santiago Bernabeu. Waxaa jira taariikho lama hilaawaan ah oo xiddigani ku leeyahay magaalada Madrid. Waxaad xasuustaada ku soo dhacaya tartanka Champions League finaalihii 2014kii, daqiiqadii ugu dambeysay oo gool ka dhaliyay. Xiddiga Madrid u shubay awoodiisa inta ugu badan ayaa sanadkan ka huleelaya. Haddaba adigu waxaad tahay taageere kubadda cagta, kooxdeed is leedahay waa uu ku biiri karaa. Su-aasha kalena waxay tahay, Madrid ma heli doontaa beddelka Sergio Ramos, kaasi oo ay ka doorbiday in uu baxo? Waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkaaga.